Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusodowo wax ka baro Academy, a digital classroom that will help you enjoy learning English. Waa classroom digital kaa saacido inaad luqadda Englishka aad ku raaxaysato barashadeeda si wacanna aad ugu hadasho. Haddii aba muuqaalkan soo gaartay, waxaan hubaa inay caqabad ka haysato barashada ama safarkaaga barashada luqadda Englishka. caqabadaasi noocay doonto ayay noqon karaysaa. Waxay noqon karaysaa inay fursado shaqo kaa hortaagan tahay, ama in aad bulshada luqadda Englishka ku hadasho ku dhex nooshahay, aadna rabto inaad bulshadii la falgasho balse aadan la falgeli karin sababtoo ah luqadii ayaa kugu adag, amaba inaad doonayso inaad waxbarashadii sii hormariso heerarka labaad ee jaamacadda u gudubto balse caqabad ay kugu noqotay luqadaada heerka ay joogto. Waxay doonto caqabadaada ha noqoto, laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaad xal waaro ka gaarto. Haddaba wax ka baro Academy sidee kaaga saacidi karaysaa inaad luqadda Englishka xal waara aad ka gaarto. Intaan wax ka baro Academy u gudbin ka hor, maxaa xal u horto marka hore inaad luqadda Englishka si kalsooni leh aad ugu hadasho. Waxaa xal u inaad horto hesho manhaj ama nidaam framework la tijaabiyey laguna kalsoon yahay, sida framework ama manhajka loo yaqaano CEFR, Common European Framework of Reference for Languages. Waa halbeeg lagu cabiro qof walba luqadda Englishka iyo luqado kale heerka uu ka joogo. Waxaana isticmaalo jaamacadaha dunida ugu waaweyn, waxaa isticmaalo dowladaha ayaa isticmaalo markay shaqaalaha qaadanayaan, waxaa isticmaalo shirkadihi ayaa isticmaalo. Dunidoo dhan waa laga isticmaalaa, waana laga tixgeliyaa. Waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay the gold standard for English assessment. Halbeega dahabiga ah ee qofka heerka luqadda uu ka jooga lagu ogaado ayaa la dhahaa. Marka haddii aad lagu yiray oo kale conversations oo shukaansi ku saabsan iyo conversations erabor looga hadlo kale ayaa ku baran karaysaa luqadda Englishka, ama vocabulary siyaasad ku saabsan oo micnahooda Soomaali lagugu turjumay ayaad ku baran karaysaa, ama 12 tennis oo grammar ayaad ku baran karaysaa. waxaas waa propaganda weeyaan. Waxaad u baahan tahay standard la ictiraafsan yahay, la aqoonsan yahay inaad raacdo. Haddaba marka wax ka baro Academy sidoo standardkaas u waafaqsan yahay. wax ka baro Academy horta waxa casharada soo jeedinayo ama maamulayo anigoo ah Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji. Aniga luqadda Englishka kuma aanan dhalanin, waan bartay. Xaaladda hadda ku sugan tahay xaalad ka adag ayaan horay u soo maray. Waxaan ku bartay dalka Kenya, ayaan ku bartay iyo weliba dalka Mareykanka. Muddadii aan baranayayna waayo aragnimo fara badan ayaan ka dhaxlay. Ilaahay wuxuu saqiray kadibna inaan noqdo macallin luqadda Englishka bixinayo. Muddo 15 sano ayaa macallinimadeeduna ay soo socotay, ama online iyo offline labaduba macallin waa ku soo noqday. Marka sidaas daraaddeed khibradii aan ka soo aruursaday iyo waayo aragnimadii aan ka soo aruuriyay muddadii dheereed ee luqadda Englishka aan marna macallin ahay marna aan arday ahay ayaa waxaan isugu keenay applicationkan wax ka baro Academy. Applicationku ma ahan muuqaalo sida YouTube oo kale aad ka daawanayso ama Telegram ama WhatsApp lagugu soo dirayo, balse waa digital classroom. Waa fasal digital weeyaan. Waa fasal digital. Fasal digital maxaa ula jeedaa? Fasal waxaa loo yaqaanaa waa meel aad ka heli karaysid ardaygu oo ka heli karo wax walbo waxbarashadiisa u fududeynayo uga baahan yahay. Macallin cashar sharxayo waa inaad heshid, shardi weeyaan. Waa inaad heshid practice, inaad heshid, waa inaad heshid assessment iyo waxyaabo fara badan inaad heshid. Marka wax ka baro Academy marka waa digital classroom weeyaan. Casharadii markii aan aniga af Soomaali aan kugu sharxo oo aan ku fahansiiyo, waxaa u baahan tahay inaad luqadda Englishku markii la dhahayo la baranayo, waxaa la dhahaa inta badan dadku waxay ku sheegaan inay hal xirfad tahay, laakiin aniga waxaan ku ogaaday muddadii dheereed inay tahay 2 xirfadood oo gebi ahaanba kala madax bannaan, 2 shaqo kala duwan u baahan. Xirfadda koowaad oo ah fahanka luqadda Englishka, in maskaxdaada lagu geliyo, ama input wax loo yaqaan weeyaan. Inputku aad iyo aad buu u fudud yahay ardaygu inuu fahmo oo luqadii barto, aad iyo aad bay ugu fududahay. Macallinkuna waxay aad iyo aad bay ugu fududahay inuu wixii ku fahansiiyo. Laakiin halka ay caqabada ka jirto inta badan macallimiinta institutionada Soomaalida ka howlgalo ay dayacaan, sababta keenaysana ay tahay in ay adag tahay waxa weeyaan waa xirfadda labaad oo ah speakingka, ama inay luqadii kaa soo baxdo.
inay luuqadii kaa soo baxdo ama outputka waa waxa ugu badan ee lagu wada fashilmo. waxaa laga yaabaa adiga hadda inaad dhehey sidoo kale markii lagu weydiiyo luuqadaada ka waran inaad la soo boodo waan fahmi karaa laakiin kuma hadli karo. sababtu waxa weeyaan fahanku wuu fudud yahay waa baran karaysaa laakiin waxa lagu kala tego waxa weeyaan ku hadlidda weeyaan. wax ka baro academy marka waxaan diyaarinay ama system ayaan u sameynay luuqadda labada skill labada dhinac si wada jir ah kaaga dhisayso. maskaxdu oo fahanka u qaabilsan waa xubin weeyaan, afka oo ku hadalka u qaabilsan waa xubin weeyaan. si kala madax bannaan ayayna u baahan yihiin in loo train gareeyo. marka si isku dheeli tiran ayaa labadaba lagaaga train gareynayaa. markuu macallinkii cashirkii ku fahansiiyo oo kuu sharaxiyo waad fahantay cashirka maskaxdaada ayuu galay, laakiin inaad fahantay muxuu kuu tarayaa haddii aadan ku xarakoo karin? shaar inaad soo iibsato maxay kuu taraysaa haddii aadan ku libisan karin oo magaalka aad ku mari karin? marka taas weeyaan waxa anaga gaar noo istaajinaya. wax ka baro academy waxa gaar noo istaajinaya waxa weeyaan wixii aan ku siino waxaan kuu ballan qaadaynaa inaad ku xarakoon karaysid haddii aad raacdid standardka ama shuruucda ama nidaamka inoo degsan aad raacdid. luuqadda ingiliishku markii cashiradu macalinka oo kuu sharaxyo applicationka aad daawato cashirkii aad daawato oo aad fahanto waxaa laga rabaa wixii aad baratay ereyadii sentensyadii aad baratay aad fahantay inaadan meeshaas aad uga tagin. waxaa la socda cashir walba codad dad luuqadda u dhashay ay ku jiraan oo lagaa doonayo inaad marka hore aad ka daba dhawaaqdo, inaad dhegaysato kadibna aad ka daba dhahdo. maskaxdii waa ku fahansiisay soo maaha. carabkii wuxuu u baahan yahay training ayuu u baahan yahay muruq weeyaan oo u baahan in la jilciyo la train garayo. jumlooyinkii aad cashirkaas ku baratay ayaa marka hore waxaa waajib kugu ah inaad afkii aad ku train garaysid. Hi, I am Noah. I'm 25 years old. I'm Australian and I'm a doctor. markii aad ku dhawaaqdo aad ka daba dhawaaqdo dhawaqa sida u dhahayaan aad soo dhaweyso ama aad keentaba ayaa markaasi howlaha xiga u gudbi karaysaa. kadib waxaad u gudbi karaysaa maxaa la dhahayay assessmentiga ama cashir walba waxa la socdo quizzes iyo exercises ayaa la socdo. quizzes iyo exercise ayaa la socdo inaad luuqadii fahantay oo aad practice garaysay oo carabkii ku train garaysay oo keliya lagagama harayo. cashirka xiga intaad u gudbin waxaa lagaa doonayaa cashirkani inaad fahantay si dhaba u fahantay weliba 4 dhinacaad ka fahantay ayaa laga hubinaya. oo kuwisyadeenu waa kuwisyo ku bees garaysan standardka CFR-ka ku bees garaysan oo si taxadar leh looga soo shaqeeyo cashir walbana ku jaan go'an. waxaa laga testi garaynayaa horta fahankaaga guud cashirkaasi aad fahantay ayaa laga testi garaynayaa. haddii aad ku baasto waxaa laga testi garaynayaa reading skillskaaga ee cashirkaasi quseeyo. waxaa laga testi garaynayaa writingka, waxaa laga testi garaynayaa speakingkii iyo listeningkii ayaa laga testi garaynayaa. taa marka waxay keenaysaa in cashirka markii aad ka baxdo inaad already cashirkaasi intaasi yaray aad haysato inaad xataa ku meel tegi karayso. inaad maanta 1000 cashir ama 2000 cashir aad qaadato balse aadan la meel tegi karin wax micno ma soo kordhinayso soo maaha. wax micno ma soo kordhinayso. marka systemkan waxaan u soo diyaarinay qofka haddii xataa 20 cashir naga qaato koorsadeenu aad bay u ballaaran tahay ilaa 1000 cashir ayaa ku jira. haddaa laakiin 20 cashir 30 cashir aad qaadato inaad 30kaasi cashir maskaxiyana aad u fahansan tahay afkana aad u adeegsan karayso oo haddii imtixaan lagaaga qaadayana aad ku baasi karayso ayaa hubinaynaa. markaad stepskaasi ka soo baxdid waxaad gudbaysaa markaa cashirka xiga oo asagana sidoo kale raacayo. waxaa intaasi kuusii dheer cashiradeena waxaa la socda waxaa la dhaho language practices oo aad arki doonto oo ah wixii aad baratay in jumlooyin kaloo dheeraad ah oo example kale fara badan lagu soo raaciyo. weliba waxa ay kaloo noo dheer practiceskaas waxaa ku jira waxa la dhaho modeling system anaga noo gaara oo modeling ah. role play ayaa la dhahaa. role play in qof su-aal ku weydiiyo, qof cadaana luuqadda u dhashay inuu cod ahaan su-aal ku weydiiyo kadibna su-aashii lagaa rabo Janus applicationka oo kuu siiyo inaad ka jawaabtid. markii aad ka jawaabto kadibna jawaabtii oo saxda lagu soo raaciyo. haddii aad qaladayna waad ku celin karaysaa. maantoo dhan waad ku celin karaysaa. cashir walba oo aad qaadatay ama concept walba aad fahantid waxaa lagu sameynayaa role play automatic ah oo applicationka dhexdiisa aad ka dhex maamulanayso. 1. Why are you shouting? I'm shouting because I'm angry. I always shout when I'm angry. I'm shouting because I'm angry. I always shout when I'm angry. 2.
Why is he biting his nails? He's biting his nails because he's nervous. He always bites his nails when he's nervous. He's biting his nails because he's nervous. He always bites his nails when he's nervous. marka waxay keenaysaa inta aad maskaxdaada train garaynaysa in ka badan in afkaaga la train garaynayo ayay keenaysaa in ka badan in afkaaga la train gareeyo ayay keenaysaa applicationkeena waxa xataa uu leeyahay dictionary haddii aad lacala eray aad fahmi weyso ama micnihiisa aad u baahan tahay inaad barato aad ka dhex baaran karayso Shivering. waxaan filayaa inaad si fiican aad u fahantay marka waxaa intaasi ku dheer macasharada applicationka oo keliya ayaa qaadanaya mise wax kaloo dheeraad ayaa jiro wax badan ayaa jiro welina kowles ma gaarin dhammaan horta dhaqdhaqaaqa iyo wax walba casharada iyo applicationka aad ka dhex samaynaysid macalinkii si dhow ayaan ula soconaya oo exercise walba aad saxday wixii aad qalado wixii aad ku baasto wixii aad practice garayso cashirkii aad complete garayso everything wax iga qarsoon ma lahan wixii caqabad ama issues ama taageero dheeraad u baahan tahayna mar walbo I am always available for you ay fahanteen aan filaya intaasi waxay noo sii dheer in isbuuc walba aan 2 jeer live soo galo oo ardadeedii iyo aniga aan toos iskaga hor imaano taawo marka keenayso ardaygu inuu bulsho dhab ah oo real ah ka hor hadlo inuu ka hor hadlo wax ka sheego wax qaldamaan wax lagu soxo la kaftamo la qoslo la baashaalo taa marka waxay keenaysaa social learning wax la dhaho social learning ama inay bulshadu wax isla wada barato macalinkii su'aalo la weydiin karo jawaabo uu bixinayo waxyaabo kale oo dheeraada sharaxaad oo lagugu siinayo ardadii kale aad la practice garaynaysa isbuuc walba 2 jeer waa marka haddii ay kaa go'an tahay inaad ku hadalkaaga sare u qaado livekaasi kama maqnaanaysid waxaa kaloo intaasi kuu sii dheer in aan sameynay diyaarinanay communities bulshadu waxa weeyaan bini'aadanku waxaa la dhahaa waa bini'aadan social weeyaan ama waa creature social waa noole social weeyaan socialku marka in arday iyo asxaab adiga kula mid ah oo kooban group 500 oo qofood ay ku jirto ama 200 oo qofood ku jirto laguma dhex tuuray 20 qofood 25 ilaa 85 arday oo adiga kula mid ah kula practice garayaan markaad practice dheeraad u baahatid haddii aad stack naqatid ama caqabada aad la kulantid oo kale aad la soo wadaagtid laga saacido oo hogaamiye leh goals lagu dejinayo goalska kadibna markii isbuucii dhamaada lagala xisaabtamayo iyo dabagal joogta lagu haynayo marka ma dareemi doontid cidlo 100% waxay taasi noo sii dheer ardadeenu bil walba markii uu dhamaado kulan weyn ayaa qabsanaa kulan assembly oo aan ku abaalmarino kuna maxaa la dhahay dhiirigelino ardada ugu saameynta badneed ee hogaamiyaashu ay soo gudbiyaan bil walba markuu dhamaado hogaamiyaha walba oo groupka hogaaminayo wuxuu soo gudbinayaa ardaygii ugu wacnaay ayuu soo gudbinayaa ugu saameynta badnaa ama ugu dadaalka badnaa ayuu soo gudbinayaa bisha markay dhamaatana waa la abaalmarinayaa waxa weeyaan waa celebration yar ayaa loo qabanayaa ardada liidato oo xogaar groupka dhaqdhaqaaqooda wanaagsaneenine waa noola soo gudbinayaa si markaasi taageero dheeraad loo sameeyo adigana waxa weeyaan haddii aadan rabin haddii aadan banaanka aadan isgeynin adiga ma dareemi doontid cidlo waxaa fursad u helaysaa xitaa groupka inaad hogaamiso adiga hogaamiye ka noqoto haddii aad jeceshahay leadership skillskaaga inaad sare u qaado xitaa fursad weyn ayaad ka helaysaa marka waxaan aaminsanahay inay tahay meel aad iyo aad xal waara uga gaari karaysid safarkaaga luqadda ingiliishka marka waxaad isweydiinaysaa muddada ay koorsadu soconayso iyo qiimaha lagu dhiganayo iyo qaabka casharada loo qaadanayo casharada horta applicationkay ku jiraan saan u sheegay livekii markii laga soo tago muddada ay soconaysona koorsadu horta waxay ka kooban tahay ilaa 5 level ayay ka kooban tahay A1 oo levelka ugu hooseeya ilaa C1 oo levelka advanced ah waxaan ku soo daray aniga oo si gaar aan u diyaarshay level la dhaho level A0 oo dadka aan A1ka aanan la jaan qaadi karin xogaar luqadda higaada Englishka higaadinta iyo ku hadalku ay higaadida iyo ku dhawaaqida erayadu ay dhibayaan level aan higaada uga soo dhiso ayaan ku jiro oo ku la socdo oo mar walba aad qaadan karayso
alright shantaasi level iyo levelka higaadida marka laisku daro 6 level ayay isku noqonayaan 6daasi level walbo waxay ka kooban yahay in ka badan 250 cashir ayuu ka kooban yahay marka waad dareemi karaysaa baaxadda ay leedahay koorsada 1000 ka badan oo cashir ayaa ku jiro oo practice-yadii leh quiz-yadii leh exercise-yadii leh muddada ay soconayso waxay ku xiran tahay ardaygu heerka uu luqadda ka joogo oo ka bilaabayo ama fahankiisa ayay ku xiran tahay application-keenuna ma ahan application cashirada kugu soo waalayo socodsiinayo ama fahan ama ha fahmin kugu wadaya ma ahan waa application loogu talagalay ardaygu xawaarihiisa inuu la jaan qaado ardaygii fahmadiisu fiican tahay inuu la jaan qaado oo cashiro ku habboon oo aanan ka badnayn kuna yarayn siiyo ardaygii xogaar fahmadiisa hooseyso ama rabo inuu tartiib isaga socdo la jaan qaadayo sidaas tartiibta ugu wadayo marka koorsadu waxaan ugu talagalnay 5 level bilow ilaa dhammaad in aad ku dhammaysid 1 sano ilaa sanad iyo bar way ka badan kartaa muddadaasi wayna ka yaraan kartaa waxay ku xiran tahay dadaalka aad muujiso iyo heerka aad adiga luuqadda marka hore aad ka bilowda ayay ku xiran tahay qiimaha lagu dhiganayo $100 ma ahan $100 laakiin way u qalantaa laakiin ma ahan $100 aad iyo aad bay uga yar tahay waana qiimo isbedeli kara weeyaan waana qiimo lagu jaangooyay bulshada Soomaaliyeed baahidooda iyo duruufahooda dhaqaale haysto hadda afka kama sheegi karo maxaa yeelay qiimaha wuu isbedeli karaa hadduu isbedelana waxaan ku qasbanaan doonaa inaan videogani bedelno marka qiimaha latestiga ee hadda koorsada lagu dhiganayo videogan hoostiisa ayuu ku qoran yahay bil walba waxaad bixin lahayd laakiin waxaasoo dhan waxaa kaaga muhiimsan ama kaaga weyn waxa aad baranayso waxaa laga yaabaa inaad isdhehayso hadda hawshani kunkani cashir iyo koorsani aadka u ballaaran hadda waqti uma hayo ama waa mashquulsanahay waan u soo firaaqoobaya waxaan kuu sheegayaa noloshu mashquul kama dhammaato haddii aad aaminsan tahay beri inaad firaaqa noqon doontid marnaba ma dhaceyso maalin walba maalinta ka dambeyso nolosha mashquulkeed wuu iska badan yahay mar walbo aad sii dheeraysatana waa mar walbo culayska kugu sii bato weeyaan maanta maalin ay kaaga firaaqa badan tahay ma jirto maanta maalin ay kaaga habboon tahay ma jirto inaad culayska luqadda Englishka ka haysto aad iska xaliso haddaba maanta iska soo diiwaangeli haddii aad awooddo maalin walba 30 daqiiqo haddii aad awooddo inaad wax barato wax weeyaan wax weyn ayaa kuu qabsoomaya sanadka yuusan dhammaanin adigoo ku fikirayo inaad wax bilaabi doonto sanadku ha dhammaado ama ha bilowdo waxaa lagaa rabaa inuu safarkaagu uu socdo waxaan filayaa inaad si fiican uga faa'iidaysateen fadlan imtixaan marka hore iska qaad oo heerkaaga tijaabi systemka kadibna recommendation ayuu kuu sameynayaa level kugu habboon ayuu kadibna kuu soo bandhigayaa iska diiwaangeli kadibna tallaabooyinka xigana ee cashirka ugu horeeyo ee koorsada ayaa lagugu siin doonaa insha allah iyo sidaad community-ga uga mid naqan lahayd wasalaamu calaykum waraxmatullahi